السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا أصحابتك وحنا جنال كينا وهليها أمدا كسر دواء تحنين سديدات يكون هبين فضلا هدية نقول عسول تسود وو سبسكرايب صار جنبلاك كان الرقم سي كوسو جاران واحد بأنصارك ندرب ذيبا هدية هورين ولا جوتينا لايك صار سينا شير جري ولا ودك أصحاب هذا كندي وفكر كيف يعني كنا سوق قرقبته هو سيكم تيادا مركز دعوة كدي أنا جن سي أي دي رجلين ونقطه ما السنة هدرنا دعوة شو عن هبين كي شناد مركو وزير كي ويدي شاكذي بقر سنديات iyo shimbirtiisii ayuu boqorkii hadalka ku bilaabay waxaa jiray boqor ka mid ah boqorada reer Faris kaasoo aad u jeclaa safarka iyo ugaarsiga wuxuu kaloo jeclaa tamashleenta iyo dalxiiska boqorkaas wuxuu lahaa shimbir uu aad u jeclaa meel kastana u raaci jirtay maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in boqorkii ugaarsi u baxay kadibna waxay arkeen deero markaas ayuu boqorkii askartii ku yidhi afarta dhinac ha laga soo maro qofkii ay dhinaciisa ka fakatana ha ogaado in kurka ka goyn doono markaas ayaa deeradii la hareereeyay kadibna waxaa dhacday in deeradii dhinaca boqorka aaday oo ayna ka baxsatay markaas ayaa askartii isfiiriyeen oo hoosta wax ka sheegeen kadib ayuu boqorkii wasiirkii u wacay kuna yidhi maxay leeyihiin markaas ayuu wasiirkii yidhi waxay leeyihiin inaad adiga dhahday qofkii dhinaciisa deerada ka baxsato in kurka laga goynayo markaas ayuu boqorkii yidhi waxa igu balan ah inaan keeno kadibna asiga iyo faraskiisii iyo shimbirtii ayaa baxeen wuxuu socdaba wuxuu arkay deeradii wuxuuna sii daayay shimbir taasoo ayadana indhaha kaga dhigtay deeradii si uu boqorka u qabto kadib ayuu boqorkii deeradii qabtay markaas ayuu qalay oo maqaar siibay wuxuuna soo qaatay maqaarkeedii iyo madaxeedii waqtigana wuxuu ahaa mid aad u kulul cabaar markay socdeen ayay oon dareemeen markaas ayuu boqorka hareeraha fiiriyey wuxuuna arkay geed ay biyo ka soo burqanayaan markaas ayuu boqorkii ubadiisii la soo baxay oo biyihii ku shubay wuxuuna damcay inuu cabo hase yeeshee waxaa ku soo booday shimbirkii oo ka daadiyey markaas ayuu boqorkii isdhahay asigaa aad u oomane balsi biyihii ayuu mar kale soo shubay oo uu shimbirkii hoos dhigay balse shimbirkii biyihii ayuu daadiyey kadibna ayuu boqorkii oo yaaban mar saddexaad soo shubay oo faraskiisa siiyey balse waxaa mar kale daadiyey shimbirkii markaas ayuu boqorkii aad u xanaaqay asigoo shimbirka ku qayliyey wuxuuna dhahay wallaahi haddaad mar kale daadiso seeftan ayaan kula dhacayaa wuxuuna soo shubay biyihii asigoo cab isleh ayaa haddana waxaa daadiyey shimbirkii markaas ayuu boqorkii xanaaqay oo shimbirkii seeftii ku dhuftay dhulkana ku dhacay balse wuxuu arkay boqorkii shimbirkii oo madax wax ugu ishaarayo asigoo nafta ka sii baxayso sida inuu leeyahay geedka korkiisa fiidhi markaas ayuu boqorkii geedka korkiisa fiidhiyey mise waxaa basaaran abeeso aad u qarweyn waxaan shubmayana waa sunteedii markaas ayuu boqorkii aad ugu shalaayay iskana ooyay shimbirkiina halkii ku dhintay marka wasiirow ma waxaad rabtaa inaan noqdo sidii boqorkaas oo aan dilo ninkii i daaweeyey kadibna hadhow aan ka shalaayo markaas ayuu wasiirkii yidhi boqorkaygiiyow aniga hadal kasta oo aan ku dhaho inuu sax yahay gadaal ayaad ka ogaan doontaa haddii aad hadalkayga iga yeesho waxaa laga yaabaa inaad badbaado balse haddaad taladeeda iga diiddo oo aadan ka takhallusin xakiim rooyaan waxaad u halaagsami doontaa sidii uu u halaagsami rabay amiirkii ugaarsigii jeclaa markaas ayuu boqor yoonaan yidhi oo maxay ahayd sheekadii amiirkaas markaas ayuu wasiirkii hadalkiisii ku bilaabay boqorow waxaa jiray boqortooyo oo waa hori jiri jirtay boqorka ka talinaya wuxuu dhalay wiil kaasoo aad u jeclaa ugaarsiga maalintii dambe ayuu ugaars u baxay kadibna ayuu wadadii ka dhumay asigoo jidka keligiisa socda ayuu wuxuu arkay gabar jaariyad ah oo jidka keligeeda fadhiso markaas ayuu waraystay waxayna u sheegtay inay la socoto safar qoyskeeda ahaa oo ayna ka dhuntay una baahan tahay inuu caawiyo markuu hadalkeeda maqlay ayuu naxariis dareemay wuxuuna go'aansaday inuu caawiyo wuuna sii waday ilaa ay ka soo gaareen meel xeeb ah oo badda u dhow markaas ayay ku tidhi inta wax yar igu sug xaajo ayaan soo gudanaa kadib ayay ka tagtay laakiin iyadoo ogeyn ayuu soo daba kacay balse yaabka waxay ahayd markuu arkay iyadoo carruur la joogto kuna dhahayso waan idin imid waxaana idin keenay wiil aad u caylan markii amiirkii hadalkii maqlay ayuu aad u naxay naftiisana u baqay asigoo isla markii faraskiisa ku soo dhacay meeshiina ka soo cararay oo uu sidaas ku badbaaday marka boqorow waxaan ka baqaa in sidii wiilkaas amiirka ahaa ee gabadha jaariyadda dadcunka ahayd uu caawi isdhahay u haligi gaartay inuu adna xakiim rooyaan maanta saasoo kale kuu haligo waxaadna ogaataa in ninkan maanta shay aad qabatay hadduu kugu daaweeyo uu berina shay aad urisay kugu dili karo waxaana laga yaabaa inuu yahay jaajuus ay cadowgaaga kuu soo direen si uu kuu dilo ee aniga waan kuu naseexayn ka takhallus markaas ayuu boqor yoonaan yidhi wallee waa runtaa oo haddii maanta shay aan taabtay igu daaweeyey waa macquul in beri shay aan uriyey igu dilo waxaana laga yaabaa sidaa sheegtay inuu jaajuus yahay markaas ayuu boqor yoonaan ku yidhi wasiirkiisa oo hadda maxaa tala ah oo aan ninkan ka yeelnaa markaas ayuu wasiirkiisii ugu jawaabay isla waqtigaani la joogo qof u dir
una sheeg inuu kuu yimaado oo hadduu kuu yimaado kurka ka gooy shartiisana iska xir ilaan biyo intaysan kusoo gaarin ayaa la iska moosaayay markaas ayuu boqor yoonaan sidii sameeyey wuxuuna u diray qaar askartiisa ka mid ah wayna keeneen asigoo faraxsan oo warmoog iska ah markii la keenay ayuu boqor yoonaan yidhi ma og tahay sababta halkaan aan hadda kuu keenay markaas ayuu xakiim rooyaan yidhi cilmulghayb alla unba og markaas ayuu boqorkii yidhi waxaan kuu keenay inaan ku dilo kuna daldalo markaas ayuu xakiim rooyaan yaabay aadna u yaabay markuu hadalkaas maqlay maxaan galabsaday oo igu dilaysaa markaas ayuu boqor yoonaan yidhi waxaa isoo gaartay inaad jaajuus tahay halkaanna aad u timid inaad i disho waana igu qasab inaan ku dilo intaadan i dilin markaas ayuu boqorkii amar ku siiyey askartiisa inay qoorta ka gooyaan markaas ayuu odaygii xakiimka ahaa ku yidhi boqorkii boqorow iska kaydaa alle ayaa ku dayn doonee wuuna baryey sidaan aniga kuu baryey cirfiid yahow odaygii kaluumaystada ahaa sheekada waday ayaa wuxuu la hadlay cirfiidkii sanduuqa ku xidhnaa markaas ayuu boqor yoonaan yidhi aniga kuguma aamin qabo waayo waxaa shalay igu daawaysay wax aan qabtay waxaana macquul ah inaad beri igu disho waxaan carfiyey marka waa inaan kaa takhallusaa markaas ayuu xakiim rooyaan yidhi ma sidaan ayaad igu abaalmarinaysaa wanaaggiina xumaan iigu beddelaysaa hase yeeshee boqorkii go'aankiisii ayuu ku adkaystay markaas ayuu xakiim rooyaan markuu yaqiinsay in la dilayo yidhi waxaan kaa codsanayaa intaadan idilin ka hor inaad ii oggolaato inaan gurigayga ku laabto oo ehelkayga soo macsalaameeyo una soo dardaarmo sidoo kalena aan soo hibeeyo kutubtayda cilmiga ka buuxa waxaana ku jira kitaab aad u fiican khaasna ii ah kaasoo aan adiga si khaas ah kugu sii hadiideen doono maadaama uu kitaab muhiim ah yahay markaas ayuu boqorkii yidhi waa maxay kitaabkan muhiimka ah markaas ayuu xakiimkii yidhi waxaa ku jiro oo aad ka helaysaa waxyaabo aan halkan kusoo koobi karin iyo siro aad u badan markii aad aniga madaxa ii goyso oo aad akhriso 3 baal oo ka mid ah baalasha kitaabkaas mid kasta 3 sadar oo ka mid ah madaxayga wuu kula hadli doonaa asigoona kaaga jawaabi doono su'aal kasta oo aad weydiiso markaas ayuu boqor yoonaan aad u yaabay wuuna rumaysan waayey hadalkii xakiim rooyaan asigoona ku yidhi oo haddaan madaxa kaa gooyo miyuu awood u sii yeelanaa inuu ila sii hadlo markaas ayuu xakiimkii yidhi haa waana arrin cajiib ah soo ma ahan kadib ayaa xakiimkii loo waday si uu reerkiisa u soo sagootiyo maalintii ku xigtay oo ahayd maalintii la dili lahaa xakiimka ayaa asigoo la wada la keenay waxaana yimid boqor yoonaan oo ay la socdaan dhammaan madaxdii dowladda oo inta badan ka xumaayeen in ninkaasi boqorka abaalka u galay la dilo kadib ayuu xakiimkii boqorkii soo hordhigay kitaabkii wuxuuna dalbaday baaquli ama saxan weyn waana loo keenay markaas ayuu boqorkii u dhiibay kitaabkii wuxuuna ku yidhi markii aad madaxa ii goyso ku rid weelkan su'aashaad doonto wuu kaga jawaabayaa markaas ayuu boqor yoonaan soo qabtay kitaabkii wuuna kala furay laakiin warqadihiis aad ayay isugu dhegnaayeen sidaas darteed ayuu gacantiisa cantuubtiisa mariyey asigoo ku kala bixinayo warqadihii isku dhegnaa markuu sii marayay ilaa 6 baal oo uu waxna buuggii ka arki waayey ayuu boqorkii dareemay inuu tabar dhigay istaagana ka dhacay sababtana ma taqaanaa cifriid yahow sababtu waxay tahay kitaabka uu xakiim rooyaan meesha keenay wuxuu ahaa kitaab sumaysan boqorkana markuu gacantiisa afka gelinayay oo uu cantuubta marinayay ayay suntay jidhkiisa gashay isla goobtiina ayuu ku dhintay marka cirfiid yahow boqorkaas hadduu xakiimka faraha ka qaadi lahaa wuu badbaadi lahaa laakiin wuu diiday inuu faraha ka qaado asiga ayaana dhintay wuxuuna xakiim rooyaan meeshaasi ka tiriyey tix gabay oo micnaheedu yahay way xukmiyeen wuuna la dheeraaday iyagoon ogeyn inay yar tahay wakhtiga xukunkooda hadday cadaalad fali lahaayeen waa loo cadaalad fali lahaa laakiin way xadgudbeen iyagana waa lagu xadgudbay wakhtigana wuxuu u diiday aafooyin badan iyo mixnad waxayna noqdeen iyagoo carabkooda ku heesa tan anagaa isku keennay shalayna wax ma taro waxayna ogaatay Shahrazad in